qodobka asaga inta si qoto dheer aan u dul istaagin mulaaxo baan waxaan rabaa inaan wax yar idin iftiimiyo Axmedoobe. horta waxaan weydiinayaa Axmedow, adiga caasimadii baa laga haystaa Bu'aale. Jubbaland daarood kaliya miyaad aaminsan tahay inuu dego? ma Soomaali kale kula degin, Sheekhaar kula degin, Hawiye kula degin, Digiri Mirifle kula degin. ma saasa hadda 13 sano madaxweyne ku ahay Jubbaland ugu ahay. horta dadka reer Jubbaland Allah u naxariisto, afayeenkooda hore weeye, saaxiibka hore oo dadku u yaqaan weeye. ra'iisul wasaare Xamse siyaasadda adigu kaaga dambeeyay, maanta waa kaaga sumcad badan yahay siyaasadda. hadda daaroodnimo wax ku doonaysa Cabdullaahi Yuusuf miyuusa ahayn nin daarooda oo weliba abti ku ah miyuusa ahayn oo gabar Cumar Maxamuud alle ku dhashay aniga adigu ilma habreed baan nahay. war maxaa Cabdullaahi Farmaajo miyuusa nin daarooda kula ahayn? xasan sheekh maxamuud kan hadduu xataa ku khaldirayo lax ku sawir lahaa xasan waa ka taqaanay way waaga ka dacweyn jirto lagaaga heediyay way. Saciid Cabdullaahi Danigan hadda aad leefleefaysid soo kii aad futada ka qaniintay maaha. niyow marka adiga waxaan ku leeyahay sharmuuto ka indha adag badan weeye. aan ku dhiiqaystay odayga waxa uu ninkaas wado waa sharmuuto ka indha adag caadiye weeye. u yeerto adeer u yeero dhow su'aalaha meesha ku qoran weydii oo sidii nin TikTok dhex taagan oo daarood iyo Hawiye u falanqeeyo. taasna halka waxay ka cadeynaysaa in hoggaanka iyo liidarka beesha daarood uu ka dhamaaday. kala u sababa markii inuu liidaradu naga dhamaadaan gabdhihiisii iyo hooyadiis iyo aabihiis ay ogaadeen aan la haysta oo Bu'aale lagu haysta markaas nin kale gurigiisa raayo ka shaqeeyo. taada kale adigu waa is dooratay hadduu xasan is doorto taadu ma xalaalba tan xasan sheekh maxamuudna waa nin Hawiye ayo horta kaale xasan sheekh ayaan darana ma meedadkiisii tolmana biyo xasan sheekh ma wacalba horta xasan sheekh muxuu ahaa waa kan day 13 sano is dooranaya mulaaxo hadda waa is doortay reerkeenu kursiga ka dhacay ana sheegay akhri adduun dadka u sheegay xasan ku habar ma dhici kara miya kaale maalin walba waa talacay loo waa xasan munaafiq xasan tuug xasan sheekhu waxaan hadda waxba xadi karin ama waxba dhici karin Hawiye kaliya uu xoog weynaale nimankan labadana beerka ka garaac oo meesha markale is dooro isku caanasho oo hadday ku dhahaan Soomaali hooyada u geede iyo hooyada weydii maan dalka madaxweyne ka ahay Muuse kan ahayn kii amarkaaga diiday oo aniga masiirkayga ku fadhiya. mulaax Soomaali kii masiirkayga diiday isagoo masiirkayga ku fadhiya xoogay kii amarkaaga diiday Soomaali adu ma garacto ma lahayd baa tahay marka ne wax sida ninka kula hadlaa weeyay Xasan oo iyo Xamso nacaskan shabaabka ah iska celiya oo maxaa isaga celinaysa reerkaaga waa kugu dulqaateen inaas dooratid anigana reerkaygu Hawiye weeye waa igu dulqaadanay inaas doorto thumma wallahi luuqad noocaas luuqada ayna kula hadlay qofka sida dus xishoon lagama xishoodo hadduusan sharciga ilaalina sharci la ilaaliyaa sharciga ma Hawiye kaliya ku dul shaqeeya waa ayaan daran lixaadkeeda marka waxaa la yaabaa public figure Axmedoobe waa filayay inaa grade-iga siyaasadda noqonayso GB-ga siyaasadda inaa noqonayso waa filayay maanta Hawiye daarood falanqeynaysa adoo 13 sano lagu waanweynaayo lagu qabay inaa iska aamustid be يدا أحمدوه وقت يسير من ماي ما أنت أراك سبحان في عرق إلهي واقع يقرب الحمد لله رب العالمين إلهي كا يقرب حتى ما حشوضه قفة حشوضه قفة إسعرانته قفة إسداور بالما أنت محل قاعد حرية وحلا قاعد حرية قال الميس عوالك بحول له جبال قاعد حرية وحلا قاعد حرية كسمة يسد حتى مثلا اللي تشوف تذكر الله يلا قاعد حرية بين الشيء وما نكسر الأولى صورتها ما نكسر قفة كتب أوريها مارت أنا دارت كسرتي لانديرا نايو سيال قبل بندقنايو كاري أنا ويا مركا وقتا بالتاني كتاريخ ما آخر يميا وريا آخر الله كسي مدحوينها وحيري هلقن كان شو هلقن كسب بلابي أنت قلت له أمس مدحوينه هذا يبقى البدقية هو حريست نور دوبلو دقية هو حريست ساتك على جدود بدقية هو حريست مسجواي بدقية عادي عمار وحريست حرنين وحريست أضو حقيقة حريست هل دولان بقى قد سدح توصل واحد تكتبوا له حاجي غير كي يدق عيسى محمد العايك اسماعيلته ودحيسه واسديته كيلومتر انا dadka u sheegay hal laami aan dhistayo hadda ninkaas Cumar Farweene oo gudoomiyahay Ciise Maxamuudka ninkaas laamigaas uu ku gula taliyo laga kari way markii dambe aad ogolaatay ba 13 sano kisbaa ku soo kordhisay ma xishootid hadde waa taa islaanta inta suuq dhex istaagtay tiri intay futada qaawisatay oo wixii wasaa ragii u tusay tiri war ma la kala xishoodo bay tiri hadda waa sidii way ma la kala xishooda maraysa وايه ملاح ما انت عمو دبتك سوفريس ما انت دبتك ساريا سوفريس وهذا على حالي ملاح الله لما قضى بان خطبتي سيدي كغدر استاغ انت كله نعناع باي هاي horta muslim waa wareeraa
قفك مسلم كأه وورا أنت لما تقول بدون استعجل وجهي سدحات يا وجهي أفراد يا ضام قشو وحصل شيء واقي ودجالك على الشباب بلعبي وحي كوريرا مركو وحي كوريرا بو oo laakiin saraakiil badan laga laayay meel badan oo qabsaday wixii wajigii labaad aan bilaabeen dagaalku hal waji buu leeyahay inaad guuleysatay inaad guul dareysato wax ka dhaxeeya male waji kale tiibu dani koobiyeenaya markii dani isagoo koobi baasta xashiiqa way ilaa waa macalinkiisii wajigii saddexaad baa bilaabay ku leeyahay war wajigii saddexaad muslim waa wareeraaye kii koowaadba hal maxbuus daacish baad qaban maalin walba rasaas baan qabtay baad leedahay waxaan god baan galay baad leedahay balaayaan galay nimanka soo afjar markaasaan liminta kuu qareenahay labada qodob ka hadlay waxa weeye qodob waa ganacsatada shacabka u dhibaya qodobkaas ilaahay baa ku dhaaray ganacsatada shalay ma dhibaneed mise ma dhibaneed way dhibanay shalay ganacsatadii Puntland ee dhibaneed ee baadda laga qaaday wuxuu leeyahay daacish bil lacag u aruurin jiray warkeen baan ku leeyahay way daawanaysaa yaa mulaaxo ganacsatada qofka ay lacag ka qaadeen oo Puntland keen qof inta ay u tayeen lacag ka soo aruuriyeen keen cadeyntii waa ku ogahay ganacsatada waxa ka rabtaa lacagta doorashada ku aadi lahayd sidii warkaaga xalay laga dhadhansaday waxaad xalay sheegtay inaad mar kale xamar ku noqonayso waa ku maamahaya caaw hadda koorba dhurwaaba libaax baa xanuunsaday dawaco u yar xuyna dawaco waxaan meesha ku jira xayawaanada adaa ugu caqli badan kaale bar waxa samaysaa iika neef aan isku baanto saas xayawaanka u fariis dameer beesh dameerkii beex ku tiri kaale boqor baa laga dhigayaa ninkii odayga ku yeeray ninkii god ku jiray u keentay tii u gal waa kaasa markuu u galo labada dhagood ku dhagay dameerka waxa ku taqaanaa xoog weeyahay gadaal buu u soo cararayo dhagii buu goostay wixii naaya dawaco maxaa saa igu gashay miyaad qof islaam ahay anaga tag oolba dameer baa xagee taajka laga saaray tii dhagaha dhaadheer oo qaabka daran laga jaro dhagii baa laga jaray ku noqo beetir uu ku noqday laba uu kala gooyay madaxii oo ka soo haray markuu inta kala raqay beetir war hilibku xigasiisina hilibna ma haye madaxa cun maskaxdana iira dawaco ma maskaxda iyadoo isku baarat hadda wiina dawaco qandha yar ayay bal maskaxda ii keen tiri dameer haddii maskax leeyahay waqadku mar labaad kugu soo noqon laha hadda dani haddii maskax leeyahay isagoo mar kale lacagtii 30 milyan 50 milyan xamar lagaga qaatay hadda waxaa lacag aruurinayo oo dadka xamar jooga cawaan ma ahay maalin walba uu caayiyo buu hadana meeshii u socda haba aado hadduu wax ka soo helay khayr Allah siiyo laakiin talada Puntland waa inuu dhulka dhigo madaxweynenimadu inuu dhigo weeye thumma wallahi uu santuu la dhaqaaqo uu meesha la aadin ganacsatada marka lacag buu ka rabaa waa baad weeye minkii ganacsadihiisa arba listiga oo soo saaray nin Maxamuud Salmaan ku jiro waa qabiiladii kale ee majeertaanka ama hartiga kale buu ilaashaday kuwa xogaaga haysta waa baad caadi isii weey hadii kale ay shaabadeynaya qodobka waa gaysa subax qodobka kale ugu muhiimsan ninkan ismuu ka dhawaajiyay inay la shaqeeyaan daacish wuxuu kale ka dhawaajiyay ismada sababtu uga dhawaajiyay baa inuu istaagaya wuxuu yiri ismada buu yiri qaar daacish la shaqeeya jira sababta uu taa ka wada waxa weeye marka uu rabo 16 xildhibaan gobolka Bariyaala uu qoranayo ninkii isleeyahay waa ku diidaya waraano maanta shaabadeey ismkaas waraano shaabadeeyo ismada marka gobolka Bari fiidiyowgan gaarsiiyay ilaahay ku dhaariyay waxa tiraadaan daniyo soo Maxamuud Salmaan matiid maalintaad Ciise Maxamuud soo boobto oo Sultaan Saciid maxaa garaa saxiixiisa xado oo Islaan Ciise saxiixiisa xado maalintaas anaguna ku ogolna inaan saxiixan xado inta ka horeysa Soomaa sida ragga uga baqayso labka Maxamuud Salmaanka ah inaan anaga nooga baqdo waa balan wuxuu kale oo xalay uu kala daadiyay ciidamadii furinta ku wada jiray uu kala daadiyay sababtu waa maxay ciidanka ismkiisa la weeraro ama la shaabadeeyo ma ku joogaya furinta tusaalaan Ali Salmaan baa beelajooda la shaabadeeyay Ali Salmaan Ciise wuxuu ku jiraya maamay boqol tiknikaysan waa soo dhaqaaqaya hooyada waxay leeyihiin daacish wasta bay leeyihiin orad wixii Yacquub Siyaad markuu lacagta ka diiday oo iisheeg ila shaqay ka diiday oo wax uu soo istaagay kursiga reerkayga ay ka kacma geyside soo adiga daacish ku shaabadeeyay ma shaabadaas kale ismada Puntland qaban karta marka ciidamadii furinta ku jirayna hadda isaga kala daadinaya aan walka waxa baaq wadriya ciidamada Puntland waxaan leeyahay reerkii isimkooda la shaabadeeyo ha ka soo dhaqaaqa furinta thumma wallahi akhirana eelnar baata aduna inaad rag la kaftami karin ninka isimkiisa daacish lagu shaabadeeyo inuu rabbul kacba wuxuu rabaa inuu codadka hadana boobo reerkii hadlana
واحد كلا حتى دجال كأبو قريم حزلية إذا ما داس حلقة كم مشغولي أدونا صعب على الكوتشقو مروقين مالو الكاميرا ما يعقوب حقيقة رسوي إذا عندك ليه ماذا حبنان إذا عندك ليه ساوي ركب وسوي تيبينيسا وعلى يا مسلم ووريرا دنيا هلقا سوماليا waxaa idin sheegaya oo fariinteedu u dambaysa idin kugu diraya kulay mulaax waa daawanayay labada qodob yaa la aqbalay qodobka ah inuu xildhibaanada boobo iyo qodobka ah in ganacsatada shalay waa la baaday qofka ka qarsoonta isaga mas'uulka aha culimadu ku meeraysanaya culimadu waa annahi bil ma'ruf yana al munkar ay ku qasbayeen gabadhii qaawan inay ka hadlaan laakiin nin shabaab kama hadli karaan haduu dilo hadhow maado ama kaaga soo maado 10 kilinka la socota culimada u qabta بالرمضان وهي إلهي قلوبتنا برعاها السمرية ذنبي الله دافو إلهي أول بدن بنقول ليه أول بدن إلهي نقول ليه الدقن يمد كل من شكته وسكوكول هاي بربيها كقول ليه بيشان ذنبي قرانها لقى دافو مد كلنا الشقيستي تصبيح تمحيد البدي على شغلي قبلي أو سكون ضي سنة كورسات هاي ده سنة كان إلى نقن وهي أندر القف سنة كسكوتشي إن شاء الله تعالى عماش بشر رمضان إلهي أنا أقبله أنا كل يوم ما نيقشت لكن كنت بشيء إن شاء الله هذا برنامج سوكر له واتشوجا هذا برنامج ترين واسك تكافي إن شاء الله تعالى بيتك سوفر وقرية أصلا صعدنا هذا وسلام